kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka xareed media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada isniinta iyo khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka xareed media waa 19 bisha Janaayo sanada 2020 qodobada barnaamijka caawa aan idinku hayana waxaa ka mid ah wiil Soomaaliyeed oo darbi jiif ahaa oo noqday milkiile shirkad sidoo kale caawa qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeneyda ugu taajirsan qaaradda Afrika oo doonaysa in ay madaxweyne noqoto sidoo kale waxaad maqli doontaan ninka ugu gaaban dunida oo geeriyooday isagoo 27 sano jir ah intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabtana la jaan qaado oo subscribe saar janalka gambalelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan faalo inooga reeb waatahay daawadayaal waxaynu gudgalaynaa barnaamijkeena qodobka ugu horeeyna waxa uu noqonayaa wiil Soomaaliyeed oo darbi jiif ahaa ayaa haddana noqday milkiile shirkadeed waxyaabaha bulshada soo jiita ee inta badan dhiirigelinta u noqda ayaa waxaa ka mid ah isbedelada dadka qaar ay sameeyaan gaar ahaanna kuwa marka hore nolosha kala kulma caqabado hoos u dhiga rajada qofka dadkaasi isbedelka cajiibka ah sameeyay waxaa ka mid ah Cabdinaasir Maxamuud Nuux oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa halkaas oo uu tagay isaga oo yar iyadoo xilligaas aysan jirin cid uu ka garanayay magaalada wuxuu sheegay in 12 sano jir uu ahaa markii uu magaalada imaanayay isagoona gabaad ka dhigan jiray gidaarada ku yaala magaalada maadaama uusan haysan hoy uu ka galo cadceeda maalinkii iyo dhaxanta habeenkii Cabdinaasir oo reer mi ah ayaa wuxuu xusay in magaalada uu soo galay isagoo raadinaya ilbaxnimo iyo in uu u arkayay in waxyaabo badan uu ka faa'iidi doono oo ay u horeyso waxbarasho balse nasiib darro ay taas u suuragelin weysay maadaama uusan markaas haysan dhaqaalo uu wax ku baran karo iyo reer uu ku soo hagaago midna haddaba sidee ayuu heerkan u gaaray Cabdinaasir intii uu ku jiray nolosha adag ee darbi jiifnimada haddana kama uusan rajo dhigin in wax uu noloshiisa ku maareyn karo uu qabsado isagoo sheegay in shaqooyin yaryar uu qabanayay muddadaas sida in uu ka shaqeeyo hoteelada caruurta darbi jiifka ah oo inta badan la ogyahay inay isticmaalaan waxyaabaha maanka dooriya ayaa Cabdinaasir waxa uu sheegay in uusan weligii isticmaalan koolada balse uu isagu qaadka iyo sigaarka isticmaali jiray iyadoo waliba saaxiibadiisna ay xabagta iyo koolada dhuuqi jireen Cabdinaasir hadda waa aabe haysta 4 caruur ah waxayna isaga iyo qoyskiisuba ku nool yihiin magaalada Hargeysa oo muddo ka hor uu soo galay noloshii adkeed iyo duruufihii kala duwanaa ee uu soo maray kadib hadda waa milkiilaha shirkad la yiraahdo Al Khayraad oo kiraysa gawaarida takaasida wuxuu sheegay in shirkadda oo uu ku bilaabay hal gaari ay haatan yaalaan ilaa iyo 14 gaari isagoo noloshiisa ay aad isku bedeshay kana mid ah ganacsatada magaalada Hargeysa waatahay daawadayaal wili waxaa la socotaan barnaamijka bandhiga mudiirka oo aad ka daawanaysaan xareed media qodobkan xig wuxuu noqon doonaa haweeneyda Afrika ugu taajirsan ayaa doonaysa in ay madaxweyne noqoto Isabel dos Santos oo ah haweeney u dhalatay dalka Angola ahna haweeneyda ugu taajirsan qaaradda Afrika ayaa sheegtay in ay doonayso in ay u tartanto xilka madaxweynenimo ee dalka Angola haweeneydan oo haatan loo haysto fadeexo musuqmaasuq ayaa waxaa dhalay madaxweynihii hore ee dalka Angola Jose Eduardo dos Santos kaas oo Angola xukumayay 38 sano
xafiiska dacwad oogaha dalkaas ayaa sheegay in ay ku raad joogaan lacag dhan $1 bilyan oo ay sheegeen in ay doonayaan in ay kala soo wareegaan haweeneydaas lacagtaas oo dowladda Angola sheegtay in laga dhacay dowladda. hase yeeshee eedeymahaas waa ay beenisay Isabel. Mrs Dos Santos oo da'deedu tahay 46 sano jir ayaa waxay ka mid tahay haweenka ugu taajirsan dunida, waxaana wargeyska The Forbes uu hantideeda ku qiyaasay lacag dhan $2.2 bilyan, taas oo ka dhigan in ay tahay haweeneyda ugu taajirsan qaaradda Afrika. sanadkii 2016 aabaheed oo xilligaas xilka hayay ayaa waxa uu u magacaabay madaxa shirkadda shidaalka ee Angola, waxaana ka dhashay buuq badan. balse shaqadaasi waxaa sanadkii 2017 ka qaaday Joy Lourenco oo ahaa ninkii bedelay aabaheed. maxaa kale oo ay sheegtay haweeneyda? waraysi ay BBC-da kula yeelatay magaalada London ee dalka Ingiriiska waxay ku celcelisay in nolosheeda ay khatar ku jirto haddii ay dib ugu laabato Angola. waxay intaa raacisay in ay tahay qof wadani ah, wax badanna ay ka qaban karto dalkeeda haddii ay madaxweyne noqoto. hogaaminta sideedaba waa in aad dadka u adeegtaa. waxaan samaynayaa wax walba oo ay ugu qaadato, ayay tiri. in ay u tartanto xilka ugu sareeya ee dalka ay u dhalatay ayaa ah mid aan la filanaynin, sababtoo ah waxaa inta badan looga bartay in ay tahay qof ganacsato ah oo aan dan ka lahayn siyaasadda. maxkamad ku taalo dalka Angola ayaa bishii la soo dhaafay amartay in la xiro akoonada ay ku leedahay bangiyada dalkaas, gaar ahaan dhaqaalihii ay ka samaysay shidaalka Angola kadib markii lagu eedeeyay in ay lacag lunsatay. waxaani waa been abuur, waxayna qayb ka yihiin weerarada la igu hayo oo ay ka dambayso dowladda hadda jirta, waana arrin siyaasadaysan, ayay tiri. nin kale oo ay walaalo yihiin laguna magacaabo Jose Filomeno Dos Santos ayaa sidoo kale loo haystaa in uu ku kacay musuqmaasuq, waxaana loo haystaa lacag la sheegay in uu dhacay xilligii uu aabihii xilka hayay. waa tahay daawadayaal, wili waxaa la socotaan barnaamijka bandhiga mudiirka oo aad ka daawanaysaan Xareed Media. qodobka ugu dambeeya ayaynu markan soo qabanaynaa, kaas oo ku khotama sheeko xiiso badan. sheekada xiisaha badan leh ayaa ah ninka ugu gaaban dunida ayaa geeriyooday isagoo 27 jir ah. ninka ugu gaaban dunida ee socda sida laga soo xigtay diiwaanka waxyaabaha marla araga ah ee Guinness World Records ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Nepal isagoo jira 27 sano. Khajandara Thaba Magar oo ka soo jeeda degmada Baglang ee dalka Nepal ayaa cabirka dhirkiisa uu yahay 67.8 cm una dhiganta 2 feet iyo 2.41 inji. walaalkiis ayaa shalay sheegay in ninkan uu u dhintay pneumonia. buugga lagu diiwaangeliyo dhacdooyinka ayaa ammaanay Master Magar iyagoo yiri gaabnimadiisa kama aysan hor istaagin inuu noloshiisa ku raaxaysto. Master Magar ayaa sanadkii 2010 oo uu 18 jir ahaa loo aqoonsaday ninka ugu gaaban dunida kadib xaflad dhalashadiisa loo dhigay oo ay ka qayb galeen dadka deegaanka iyo wufuud kale oo caalami ah. iskuma maleeyo nin yar, waxaan ahay nin weyn. waxaan rajaynayaa in xilkan uu ii suuragelin doono inaan taas xaqiijiyo oo aan guri fiican u helo nafteyda iyo qoyskayga, ayuu yiri xilligaas. buugga dhacdooyinka lagu diiwaangeliyay ayaa laba u kala qaaday dadka gaaban, dadka socda iyo kuwa naafada ah. Filipino oo aan awoodin inuu socdo ayaa noqday ninka ugu gaaban dunida isagoo cabirka dhirkiisa uu yahay 59.93 cm. Master Magar ayaa waxaa mar xilka ninka ugu gaaban dunida ee socda kala wareegay Jandara Bahadur Dangi oo isna u dhashay Nepal, kaas oo dhirkiisa lagu sheegay 54.6 cm.
si kastaba wuxuu xilkiisa dib u helay kadib geeridii Master Dangi sanadkii 2015. Master Magar waxaa markii hore arkay ganacsade markii uu ahaa 14 sano jir, wuxuuna u qaaday goobaha ay dadku isugu yimaadaan. kadib markii uu aqoonsi ka helay buugga lagu diiwaangeliyo dhacdooyinka adduunka sanadkii 2010, wuxuu u safray dunida, wuxuuna ka soo muuqday telefishinno ku yaala Yurub iyo Mareykanka. wuxuu sidoo kale noqday wajiga dhabta ah ee ololaha dalxiiska Nepal. tafatiraha sare ee buugga dhacdooyinka dunida ayaa sheegay inuu aad ugu murugaysan yahay geerida Master Magar. dhoola cadeyntiisa waxay ahayd mid dhalaalisa qof walba oo uu la kulmo, ayuu yiri. rikoorka ninka ugu gaaban dunida ee socda waxaa haatan la wareegaya Edward Hernandez oo u dhashay Colombia, kaas oo dhirirkiisu yahay 70.21 sentimitir. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.